guddiga komishanka doorashooyinka qaranka Soomaaliland ayaa kala diray shaqaalaha iyo gaadiidka ka shaqeyn doona goobadalka kaararka codbixiyaasha iyo u adeegista dadkii ay ka lumeen kaararka codbixiyaha ee gobolada Togdheer iyo Saaxil waxaana kala dirka shaqaalahan ka warbixiyay Komishineer Maxamuud Siciid Dalmar oo ka mid ah xubnaha guddiga doorashooyinka qaranka Soomaaliland isagoona sheegay sida ugu habboon ee loo bedelan karo kaararka iyo goobaha ay ka shaqeyn doonaan shaqaalahani maanta oo ah axad 14 bishii February 2021 waxaanu halkan ku kala diray shaqaalihii gaadiidkii iyo qalabkii lagu hawlgeliyay berito oo ah Isniin 15 bisha tan oo ay bilaabmi doonto goob bedelkii iyo kaar bedelkii taasoo ka dhici doonta dhammaan gobolada iyo degmooyinka ay ka kooban tahay Jamhuuriyadda Soomaaliland adeegan la qabanayo ee komishanka doorashooyinka qabanayo iminka waa adeeg ah in kaarkii qofkii hore uu ka lumay loo bedelo waxa kale oo iyana shaqada ku jirta in qofkii ka guuray meel kale u guuray isagana loo bedeli doono goobta oo lagu qori doono goob cusub dadka isdiiwaan galiyay diiwaan gelintii u dambeysay 2021 iyagu kuma jiraan adeega kan oo iyaga shaqadoodii hal mar ayaa loo wada qabtay goobaha ay iska diiwaan galiyeen ayana ka codan doonaan insha Allah 31 bisha May 2021 markaas oo ay dhici doonto doorashadii golaha baarlamaanka iyo golayaashii deegaanka waxaan dadweynaha farayaa adeegan iminka la qabanayo ee ah labada ee ah goob bedel iyo kaar bedel qofka goob bedelanaya waa inuu waxa la isku bedelayaa oo qura 23 degmo doorasho waxana uu tagayaa qofka muwaadinka ah markuu doonayo inuu goob bedesho halka uu guuray ama degmada uu guuray ayuu wuxuu tagayaa goobta ugu dhow ee shaqadu ka socoto waxa uu sheegayaa sababta ugu soo guuray magaalada tan dabadna wuxuu buuxinayaa form dabadna waa laga seexayaa marka ayaa goobta loo bedelayaa waxa la siinayaa shahaado ku meel gaar ah kaar la siin maayo shahaadadaas ayuu ka codan doona 31 May iyo doorashada soo socota qofka doonaya inuu bedesho kaarka kaarku ka lumay wuxuu tagayaa isla goobta shaqada ka socoto ee ugu dhow ee uu doonayo hadhowto inuu ka codeeyo waxaana uu sheegayaa inuu kaarkii ka lumay form buna buuxinaya waxaana uu ku dhaaranayaa oo kitaab jaamaca gacanta saaraya in kaarkii ka lumay oo uu hubo oo aanu helaynin rajana ka qabin markaas ayaa formka laga buuxinayaa dabadeedna waxaa loo qabanayaa adeega isaga ah in la siiyo isagana shahaado ku meel gaar ah taas oo ku codeyn doono doorashada soo socota waxaan dadweynaha farayaa cidii kaarkooda heli karta inay baadbaadhaan oo aanay isku hawlin inay goobaha yimaadaan oo ay dadka ay ka dhabta tahay ee kaarku ka lumay ama goobta bedelanaya aanay ciriiri ku samaynin cidii kaarkooda haystaa doonato waxaanu ka hawlgelaynaa anagu iminka gobolka Togdheer oo ah 19 goobood laga hawlgelayo iyo gobolka Saaxil oo ah 12 goobood gobolka Togdheer wuxuu ka kooban yahay 3 degmo oo ah degmada Oodweyne iyo degmada Burco iyo degmada Buuhoodle degmada Buuhoodle wuxuu ka dhici doonaa Qorilugud iyo Woodward degmada Oodweynena wuxuu ka dhici doonaa Oodweyne gudaheeda oo hal goob ah Xaaji Saalax Dabagorayaale iyo Reydab Khaatimo magaalada Burco gudaheeda wuxuu ka dhici doonaa dugsiga Maxamed Cali dugsiga Qulumbe Sooyaal dugsiga Qasabka garoonka kubadda cagta City Plaza intaasi waa magaalada dhexdeeda waana 6 goobood magaalada Burco inta ay xukunto ee banaanka ah wuxuu ka dhici doonaa Balidhiig War Cimraan Qoryaale Duruqsi Riyaxidho Harada iyo Fiqi Ayuub gobolka Saaxil wuxuu ka kooban yahay 12 goobood degmada Berbera waxay ka socon doontaa magaalada Berbera gudaheeda oo ah Burcasheekh MCH ka Berbera wasaaradda beeraha iyo seelada xoolaha banaanka magaalada Berbera waxay ka dhici doontaa Laalays Abdaal Laasciidle Xagal iyo Darin Mara goob ah go'da iyo suuqsade intaas goobadu ka dhici doona waxaan farayaa dadweynaha in adeegaas uu socon doono magaalooyinka caasimadaha muddo 14 casho ah ayaa le Cabdullaahi Jaamac warbaahinta SBC magaalada Burco.